السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هاد baan idin salaamay dhalinyaro. Haddaan su'aal idin weydiiyo, dhammaan dadka baraha bulshada ee Soomaaliyeed ku jira ama dadka caanka ah aynu naqaano Soomaalida ah, culimo ha ahaadaan, fanaaniin ha ahaadaan, siyaasiyiin ha ahaadaan, YouTuber ha ahaadaan, majaajilistayaal ha ahaadaan, iska tiktokerada yaryar ee caanka ha ahaadaan, dacalka doonto u qaad. Ma garanaysaan qof qura oo Soomaaliya oo caan ah oo aynu naqaano oo aan nasabkiisa iyo qabiilkiisa la garanayn iyo meeshuu ku abtirsado? waxaa jira laga yaabo qof aadan adigu garanaynin inuu jiro aad leedahay hebel ma aqaani qabiilkiisa, laakiin indeed waxaa hubaal ah in qofkaasi nasabkiisa iyo qabiilkiisa la garanayo. qofka nasabkiisa iyo qabiilkiisa waa la garanaya. maxaa sababay taha? lianna waxa la yidhahdo soomaalinimadu laba rukni bay ku taagantay. soomaalinimada waxa la yidhahdaa laba rukni ayay ku taagan tahay. rukni waa rukniga afka iyo luuqadda, waa afka Soomaaliga ah. waxaa jira qabiilo dhan oo Soomaaliyeed baa jiro oo lahjada iyaga u gaaraho dee aan lahjad lagu sheegi karin oo luuqad madax bannaan ku hadla, laakiin afka Soomaaliga aynu ku wada hadlayno Soomaali inagula ah. qodobka tiirka labaad iyo aadinka labaad ee ay ku taagan tahay soomaalinimadu waa waxa la yidhahda nasabka iyo qabiilka. ma jiro qof Soomaaliya oo abtirsiga oo Soomaali ku abtirsado Soomaalinimo sheeganaya oo aan abtirsi rasmiya iyo meel uu ku arooro aan la helin ma jirto. qof kasta oo Soomaaliya oo meel taagani abtirsi buu leeyahay, meel uu ku arooraa buu leeyahay, nasab uu ku abtirsadaa buu leeyahay, yacni reer waa inuu galaa Soomaaliyeed. qabiilka waxa la yidhahdaa markaa Soomaalidu waa tiirka labaad ay ku taagan tahay. haddii qabiilku uu burburo oo nasabka iyo qabiilka waxa la yidhahdaa uu meesha ka baxo, Soomaalinimadu labadii tiire ay ku taagnayd mid ka mida baa dumaya. waxaa soo hadhaya luuqadda. haddii luuqaddu ay soo hadho, qof kasta oo af Soomaali ku hadlaya wuxuu noqonayaa qof Soomaaliya oo dhulka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed iyo ciidda Soomaaliyeed midna aan laga xigtaysan karin. haddii aan maanta Orom ahay ama Xabashi ahay ama Tigray ahay ama aan Suudaanis ahay oo af Soomaaliga si biyuura u barto oo aan Soomaaliya imaado, qof iga xigtaysan karaya ma jiro, waayo Soomaalinimada waxaa qeexaya waa maxay? af buu noqonaya. kaas waa intaa. yacni Soomaalinimada sida qabiilku muhiimadda gaarka ugu leeyahay weeyaan. qof kasta oo Soomaaliya qabiil buu ku abtirsadaa. markaan intaa kaga imaado, qabiilka waxa la yidhaahdo doodiisu dhaweyd buu soo adkaanaysay. dhalinyaro fara badan oo ku jira xilliga qofku dhalinyarada ahi uu intuu mabaadi'da iyo qadiyadaha dhex galo uu halka intuu hal wax hayleed marsada halka waxaas uu arko, dhalinyaro badan maanta ay ku baaqayaan qabiilka in la burburiyo. haddii qabiilka la burburiyo, Soomaali garab baa burburaya, weliba garabka rasmiga ay ku taagan tahay baa burburaya. dhulkeenana waxaynu ku difaacnaa ma jiro. dhulka maanta magaca qabiil baa lagu difaacaa. inagu intaynu isku laynayno baynu aragnay inta dibadda ah ee ummadaha kale aynu la wadaagno magac reereed baa lagu difaacaa. reer hebel xaggiina ayaan laga soo dhicin, reer hebel xaggiina ayaan laga soo dhicin. xataa markii jigjiga laga qaadayey, oramada laga qaadayey, ceelkii jigjig la odhan jiray ay lahaayeen, dee qabiilada Soomaaliyeed oo dhammaan way isugu tageen. bartirana wuu la deganaayo, way la dagaalgelayeen. bartirana oran buu la dagaalamayey. qabiilada Soomaaliyeed oo dhan ergu wuxuu soo dirsaday gurmud baa loogu yimi, waa lala dagaalgalo, waa lagala qaaday. taas waa intaa. boodhkaasi dhammaan mawduucan ka diyaariyey, laakiin maadaama aanu arkay muhiimad gaara inuu leeyahay baan mar labaad haddana ugu celinayaa. qabiilka waxa la yidhaahdaa waa wax la mid ah sida siyaasadda, la mid ah sida nolosheena caadiga ijtimaaciga, la mid ah sida jacaylka, la mid ah sida guurka. ma isagu sidiisa ceeb iyo xumaan kuma laha ee inagu sidaynu u adeegsanayno ayaa ama ceeb noqota ama xumaan noqota. dhalinyarada haddaad u fiirsataan, maanta qabiilka ku kacsanaya system qabiil waxba ku qiimeyn mayno ama qof qabiil kusoo dhaweysan mayno. waxay ku dhaqmaan qabyaalad ka xun qabyaaladda qabiilada kale aad ku qabyaaladeynayso. in maanta anigoo nin isaaq ahi aan nin daarooda ama nin hawiye ah ku qabyaaladeeyey reer ahaan, waa wax xun oo edeb darro ah oo muujinaysa inaan wax jira ahayn. laakiin isla haddana waa la fahmi karaa, waa inankan waynu kala duwannahay. qabyaaladda ugu xun ee dhalinyarada maanta yahda qabiilkaanu necebnahay iyo qabiilkaanu diidana ay ku dhaqmaan waxa weeyaan in adeerkooda dadka ugu dhawey la dhiigga ah ee la jifada hoose ay wada yihiin, isku abtirsiinta yihiin, abbaa saddexaad iyo afraad isugu yimaadaan, inay waxqabadkiisa u yasaan oo u quursadaan, oo inay sheegtaan ay isaga ilaaliyaan, oo inay magaciisa soo qaataan ay isaga ilaaliyaan, oo inay hadduu abwaan yahay sugaantiisa soo xigtaan ay isaga ilaaliyaan, oo hadduu sheekh yahay inay soo xigtaan hadalladiisa ay isaga ilaaliyaan, iyagoo diidan in la yidhaahdo abwaankii reerkiina ama sheekhii reerkiina hadalkooda wadwada. waa qabyaalad ka xun qabyaaladda ay ku dhaqmaan kuwa reeraha kale qabyaaladeeya. ee qofkan ku qabyaaladeynaya waa reer hebel, tanaa kasii xun. intaa tusaalaha waxaan u soo qaadanayaa waxa la yidhaahdo qabiilku sidiisa eed umale ee inagu sida aynu u adeegsano ayaa xumaan ka dhigaya ama wanaag ka dhigaya. haddii maanta qabiilkan u adeegsado inaan dadka kale ku xumeeyo, qabiilada kale ku dhibo, qabiilada kale wax ugu gaarsiiyo, dhammaantiin waynu ognahay inay khalad iyo edeb darro tahay. haddii laakiin qabiilkan u adeegsado reerkayga inaan wax ku taro, jifadeeda inaan ku dhiso, jifadeeda inaan carruurtooda waxbarasho ugu diyaariyo, jifadeeda inaan dhakhaatiir caafimaad u sameeyo, jifadeeda inaan dhulkooda laamiye ka sameeyo, diintaba tahay amraysa.
diinta laftirkeeda bay amraysaa waxaan bilaabaya inaan kaga bilaabo cidda igu dhow oo waa qofba qofku iga dhow yahay ay iga khayr badan tahay nabi maxamed ilaahi subxaana watacaala wuxuu shaqadii ugu weyneed u soo iigmaday waxay ahayd inuu noqdo fariin gaadhsiiye ergey oo rasuula maxaa lagaga bilaabay waxyiga wa andir cashiirataka alaqrabiin wa andir cashiirataka alaqrabiin jifidaada hoose ee kusoo xigta kaga bilow maxamedow maanta haddii maanta hal bilyan oo doolar ay gacanteeda soo gasho halkaa bilyan oo doolar burciyo beledhiig baan anigu kaga dhisaya waxaan wax kaga qabanaya kuwa markaan meel kusoo tiiriyaan soomaali inteeda kale waxaan u tari karo u taraya laakiin sheekadan ah niyow soomaali dhexdhexaad u noqo ama soomaali u sinnow soomaaliya dee xoolo ay wada lahayd ma tihid oo xero uga xeraysnaa qof baa tahay meel baad ku abtirsataa magaalo gaaraad ku abtirsataa magaalada xaafad baad kaga abtirsataa tuulaad kusii abtirsataa tan ka soo bilow waxaa qabadkaa tan u soo qaban weyday ee aad xaafadaha kale iyo magaalooyinka kale u qabanayso ama soomaali inteeda kale aad u qabanayso taa laftirkeeda qabyaalad ah inaad adigoo isla qabiil ka cararbaad adiga laftaadu qabyaaladinaysaa reerkaagii ganafka ku dhufanaysaayoo kuwii dadka kuugu xigay kuugu dhawaay mas-uuliyaddu kaa sarreed aad ganafka kusii dhufanaysaa marka war qabiilku eed male inaad qabiilkaaga sheegataa eed male inaad qabiilkaaga ku dheganaato wax muhiima oo mahuraana kula ahaadaa ceeb male in qabiilkaagu maamusya karaamo gaara kugu lahaadaa ceeb male in qabiilkaagu dadka kale uu kaaga dhawaadaa ceeb male oo reeriguuba kaaga dhow yahay waa nasabkaagiiba ninkana aabbaha labaad baa isugu tataa ninkana aabbaha afraad ninkana aabbaha shanaad wuu kaaga dhow yahayba adigoo xataa aduu ka dhoweysan buu kaaga dhow yahay in adeerkaa wax qabadkiisa aad ku faantaa waa wanaag iyo karaamo wax xumaano eeda male inaad beeshaa wanaagyadii soo sameeyeen aad ku dhaadataa anagoo caynkaasaba reer hebelkayga waa kuwii bergii sidaa sameeyey waa wanaag iyo karaamo laakiin inaad intaa yasto oo aad intaa ka cararto oo aad intaa ka fogaato oo aad meelaha kaga sheegsa sidimka dhalinyaro badan isku qanayso anigu ilmaadeertaa saaxiibada baan ka jeclay waad ka jeclaan kartaa waa dabiici xumaan maaha laakiin adigoo doonaya inaad ilmaadeerada ku fogeyso oo aan lagu arag nin qabiileed ama nin reerkiisa la nool ama nin reerkiisa la socda heedhe iyada laftirkeeda qabyaalad kaloo ka xun qabiilka caadiga ahaynu naqaanaa dhalinyaro iyada laftirkeeda ayaa ah qabyaalad kale oo ka xun qabiilka caadiga ahaynu naqaano oo ciddii aad ahayd baad ganafka ku dhufanaysaa hooyadaabaad iska durkinaysaa islaamo kale oo dare kale dhalayna oo hooyooyin waan hoosaad soo gashanaysa waad soo dhaweysanaysaa markaa fahma war haddii xilka aad haysaa aanu ahayn xil ummadeed maanta haddii lagaa dhigo madaxweynaha dalka ama maayirka caasimadda hargeysa oo kale dee reerkaygan wax taraya ma shaqaynayso marka ummad weyn baa wax lagugu dhiibay laakiin markaad halkaa taagantaad cabdulaahi tahay ee halkaa taagantaad reer hebel tahay war waxaad qabanaysa reer hebelkiina ka bilow oo qofba qofku kaaga soo dhow yahay ka bilow oo hooyada iyo walaalada iyo aabbaha iyo ilmaadeeradaa ka bilow kuwaasaa kaaga xaqle kuwa waxaa markaa tartaad kasoo dhammaato ummadda kale waxaa taraysa tar laakiin intaad ilmaadeerada ka carara si aad sheekh reerkaaga uga fogaanayso inaad hadalladiisa soo qaadato ama abwoonka reerkiina aad uga fogaanayso inaad ereyadiisa wanaagsan soo qaadato adigoo isla yaan lagu odhan waa qabyaali adigaa waxaad ku dhaqmaysaa qabyaalad ka xun qabyaaladaad ka cararayso qabyaalad ka xun qabyaaladaad ka cararayso qabiilkuna intuu ina taraabaa ka badan inta hagardaamo inagu gacmahayna isugu geysano inta hagardaamo inagu aynu gacmahayna isugu geysano qabiilku inta uu ina tare aynu isku tarno magaca qabiilka ayaa ka badan maanta istanbul baan joogaa nin reerkan ka dhashay haddii maanta istanbul meelahaas ay wax ku soo gaadhaan ama la xidho haddii maanta qof la waayo reerkayaga ah dee anaa layla soo hadlayo aadan waa ninkiina hebel hebel caynkaas ahaa anuu ninka weligeyba arag ayaa laleeyahay ninkan raadiyo dee raadinaya waxaan kaga baxaya hadalkan waxaan dhalinyarada isku qancinaysa ay leeyihiin soomaalinimada inaga badan ee qabiilka aynu ka tagno waxa qabiilkaagu ku tiri waayo soomaalinimo kuma tarayso waxa qabiil uu kuu qaban waayo soomaalinimo kuma qabanayso waxa qabiil uu kaa difaaci waayo soomaalinimo kaama difaacayso soomaalinimadu waa qabiilkoo weynu wuxuu qabiilku yahay bay soomaalinimaduna tahay sheegta reerihiina waxa ku diganina dadka cid ha ku xumaynina hana qof haddaad u aragto inaad keliya reer hebel ka dhalatay in aad karaamo gaara ku leedo ilaahay si gaara kuu farsameeyey heedhe waxba kama jiraan wax qof maran baa dad intaa ku qanacsan tahay laakiin sheegta reerihiina nasabadiina sheegta ku abtirsada aabayaashin iyo nasabadaad ka dhalateen qabiilkiinu muhiim ha idinla ahaado waxaad qabanaysaan kaga bilaaba cidiba cidda idinka dhowdahay iyo hooyadiin iyo aabihiin iyo walaalidiin ugu soo horreeyaan kaga bilaaba iyo kuwaad dhashaan hadda may fahantay wixii xumaata ee qabiil xumaan u adeegsanayana kanafa ku dhufto silaamat leh